waxa weeyaan ninkaa odagii inantaydii sifo sharci oo uu kula maqan yahay uu kula maqan yahay horta ma jirto annaga xagga iyaga oo sharciyaysantahe sifo sharci darraa waana ku haystaa haddaba sharciga iyaga anu kama waxaanu leenahay waxayd mar alla markii shiru kaa dhacay inaad sida ragga intaad u istaagto aad waxa weeye sida ragga u dhameeyo waxayna u dhamayso laakiin too late waad ogeyd in goolkan lagaa dhalinayo waad ogeyd in lagugu caarsanayo maantana tiibaad weedhaheedii guranaysaa lagugu baacsanaya waxaad samaysay dhaqan xumo waxaad samaysay asho xumo waxaad samaysay raganimo xumo waxaad samaysay garaadaro iyo waxaad samaysay wax aan magaranaysaa xilliga iyada ah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومسكيك عابساكي كوين سلامية مركو كوبات waxaa codsan inaan tan video bilaabin like saar si uu dad badan u gaaro sina share gareey lana wadaag cid kasta oo waxaan wadaagtiin video la wadaag marka koobaad waa inaad like saartaa waayo muhiim bay naga noo tahay in video-gan uu meel fog gaaro talabaad waxaan ka hadlayaa maanta arrinka barkhad batuun xildhibaan barkhad batuun ee maalmahan baraha bulshada aad u dhex wareegayay intaanan ka hadlin ka hor waxaan horta marka hore ma garanaysaa aan jeclaysta hadii weyn oo waxa weeye halka heerka dadku gaarsiinayeen ya aan laga filin si aan isla markaaba si seeflaboodnimo aan uga hadlin arrintan oo arrin aad u khatar ahayd oo social media si aad loo dhex wareejinayay maalmihii u dambeysay dhowr kalmadood baa arrinta ka odhanaya marka koobaad mid waxaan dhahayaa barkhad mid labaadna waxaan dhahayaa waxa weeye dadweynaha mid saddexaadna waxaan dhahayaa waxa weeye nimanka siyaasiyiinta oo waxa weeye political gool ku raadinayay ama inay ma garanaysaa ay muhiimad ka gaaraan political ku raadinayay arrintaas talabaadna waxaan dhahayaa waxa weeyaan kalena waxaan dhahayaa dadweynaha baan midna dhahayaa marka koobaad kusoo dhawaada barnaamijka waa maskiinka caabsaaqay ka walaalkiina oo idin leh fadlan like saar video aad ku soo gaaray sina share garee arrinta marka koobaad waxaa arkay aad baa la isku dhex qaaday arrintan aad bay xasaasiyad u ahayd sababtuna waxay tahay waa barkhad oo ah qof caana qof dadku aad u jeclaayeen qof aad u karti badan qof aad iyo aad u cod kara u hadal kara u aqoon badan akhlaaqad iyo sujuudna ay ka muuqatay badan laakiin dadku say moodayeen noqon waay xaqiiqada iyo waxyaalaha waxa weeye ku xeeran arrinta aan ku soo bandhigay marka koobaad chance yarsi seeflaboodnimada jooji dib u fadhiiso maskaxdaada isticmaal marka koobaad horta arrintan waxa weeye markaan baaray waxaan ogaaday arrintan in hadda dhicin ee ay dhacday 6 bilood ka hor oo ma garanaysaa ay ogaayeen in qaraaba iyo dawladda iyo ma garanaysaa dad iska ag dhawaa kadib ee xukuumaddu dhibca ku raadsatay ayna dib u soo bandhigtay dadweynahana soo dhex gelisay marka arrinkan u gudo galo tan koobaad waxaan dhahayaa oday shalay ka hadlay saxaafadda oo adeerkeed sheeganayay oo si aad iyo aad anshaxa iyo waxa weeye anshaxa waalidnimada iyo kan Soomaalinimada iyo ka bilaatinimada ka baxsan u hadlay waxaan leeyahay horta odaygaas haba haddii aad waalid tahay haddii uu shil kugu dhacay ama uu gabadhaada wax soo gaadheen ama gabadhaada dhibaato soo gaadhay ninka ragga wuxuu raadiyaa ama qofka waalidka wuxuu raadiyaa si uu u asturi lahaa gabadhiisa qaabkii dhaqanku ahaa ee xeerku ahaa haddii ma garanaysaa uu waayana xeelad kale u raadiyaa xoog iyo xeelad iyo dhaqanba wuxuu ku raadiyaa ninka ragga siduu gabadhiisa u asturi lahaa ama gabadhiisa ama hawshiisa u dhamaysan lahaa laakiin social media lama soo istaageen haddaanan ayna rag siyaasiyiin lacag kugu soo siin ama aanad guri ka raadinaynin gabadheedii baa xoog lagu haystaa ama xoog lagu kaxaystay ama xoog waxa lagu uriyay ama xoog lagu waxyeelay lama aanad soo istaagteen haasha dhaqan ragna ma aha bayrata mahbuunati talabaad waxa leeyahay wariyaasha nimanka aad mooday wariyaasha hargeysa joogay aad u furfudiin kuwa Soomaalida kale ka furfudiin waxay soo timiyaan hadii digaaga haday dhuusto oo kuntu ku sax oo kuntu ku istaagto iyaga soo timiyo ma digaaga dabadeed ku qabta qaabka kuntu ugu soo dhaxs hal daqiiqaba waxay soo dhacay 7 wariyo ku soo qoray uu farxumeeyay intuu farxumeeyo ku fsaday oo maxay oo ma soo ama mehersan xoog buu ku haystaa wax noocaas qoraal intay title uga dhigeen video-gi ba hal mar notification soo dhacay bum todori yaashan waxa leeyahay wax dhaqan saxaafadeed ma axmedow wuxuu dhigi jiray wax dhaqan ogaadin ma wax dhaqan saxaafadeed iyo dhaqan rag midna ma aha tan kale dadweynaha dadweynuhu wax badan bay soo dhex kacayeen waxan iyo waxa weeye sheeka ee dadkiina waska xan jeceshiin waa mana moogidin mana xan moogidin laakiin waxa weeye xanta ila sheegana warabtaan marka la sheegana maxaa loo sheegay bad dhahdin marka la sheeg waayana maxaa loogu sheeg waayay bad dhahdin tamarxada nida baysiye tan dadweynaha
dadweyne badan waxaa soo dhacay commentiyada iyo qoraalada iyo waxa weeye TikTok aad loogu falanqeynayo jirtay oo lahaa gabadha waxa weeye ninkii Safiya Tusme xumeeyay wax isxigeeno xaqi baa ka soo baxayo inaga umaleyn maayo waxaas inuu aqal gal ilaahay dadka reer iyo waxa weeye raxan wuxuu weydiiyo qof walba dambigiisu weydiiyo hadiiba dambi ma taqaana uu qofkaas galo hadiiba tigaarkiisu uu weydiiyo umaleyn maayo inay gabadhaas wax kaga jirtay umaleyn maayo inay wax ka og tahay qof bilisa oo gabadha oo waxa weeye sharfan oo ilaahay sharfay waxaas waa iska dhacay tarqiisa iyo kuturkutano iyo iskuleelsi baan arkaa anu markaan taas dadweynaha aan wax ka dhaho iskuleelsi baan arkaa tan ugu dambaysa waa barkad batuun maalin dhaweeto oo waxa weeye adninka halka idin ka muuqda oo soo eedeeyay oo ku soo eedeeyay arrinka oo nimankii qaxiyay oo kamid ahaa ninka ka furka taagaya baroor buu jabsaday shir jiraayad oo baroor buu qabsaday waxa la yiri indhayaxaas ilin kama dhamaato barkado waxaan qirsanahay oo ogahay oo marxaati ka ahay in bulshadaadu ama community aad ka soo jeedaa ama qabiilka ka soo jeedaa ay dhibaatooyin badan ay la kulmeen bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda kala kulmeen adiga laftaaduna aan filayo aan dareemay inaad kala kulantay laakiin umaleyn maayo in haddii dhaqan xumo aad samayso aad marmarsiye ka dhigan karto dhibaatooyin baa waxa weeye hadda hore lagu sameey jiray ana waxaas la dhihi doonaa taas waxaan ku leeyahay waxa ogaaday kadib markii aan arrintan baaray in gudagalay 6 bilood ka hor arrintan dhacday in waxa weeye shilkanu 6 bilood ka hor dhacay in ay labadooduba waxa weeye ay ilmaha yar dayaceen ilmaha yar la soo helay in xabsi ay ku galeen in arrinta hoos loo dhameeyay in la xaliyay in hadda waxa weeye qoys wada degan oo ilmahooda haysto asqaba ay yihiin taas baa waxa weeye xog soo helay ha ahaato waa la iloobay cid ogeyd oo bulshada social media loo soo bandhigay messenger hadii cid ogtaana waxa jir ogaa dhowr saaxiiba iyo family iyo xogaa dawladda yaa ogaa laakiin dawladdu waxay door biday inay waxa weeye ninkii ceebtiisii soo bandhigto maadaama uu ka tirsan yahay xubnaha macaaradka kuwa ugu afka dheer uuna firfircoon uuna waxa weeye cod karsan ugu jiro barkhadow dhiiqaad cagaha kula jirtaa dhiiqaad lagu hala gashay adigoo og inaad waxa weeye sensitive tahay oo siyaasi caan tahay oo u tahay magaranaysa dadka kala de waxa weeye boog ay marka horeba aad ahayd in la dhayo in la taabto u fudud aad tahay ma wax laga sheego oo tahay siyaasi caan oo tahay waxa weeye isoo sheeg baarlamaanka aad ka mid tahay oo tahay ninka taariikhda abid ugu cod badan inta baarlamaan Soomaali taariikhda abid soo martay 22 kun oo cod ninka ku guuleystay tahay ninka ugu codka badan aad tahay nin cod kara oo bulshada laga dhex barto caan aad tahay nin helo salaado sujuudi ka muuqato aad u akhlaaqad badan in arrinta noocaas aad sameynayso ama aad ku kacayso cid ka filaysa ma jirin hadii aad waxa aad ku kacday oo ku dhaqantay waxa dhaqan xumada aad ku dhaqantay oo adigu aad sameysay oo ka suurowday nawaad sameyn kartay si raganimo aad wax ku xaliso adigoo dareensan oo in waxa soo dhan xil iyo sharaf iyo ma garanaysa magaca ay garbahaaga saarnaa in dadku ay kugu soo eegan doonaan oo dadku kugu soo ma garanaysa lagu hujuumi doono ay kugu noqon doonto nabur barku taalo iyo boog ay dadku ma garanaysa adiga kugu aamusiyaan ama kugu daba galaan ma alla markii waxa weeye wax jira oo xaqiiqo ah oo laakiin aysan ahayn wax ay dawlad ama xukuumad ama niman xil haya ay meel la soo istaagaan oo dhaqan rageed aysan ahayn ay sheegeen adigana baroor ah waxaad qabsatay baroor ah waxaad qabsatay waa la yeesayaa waa la gabooyaa tahay baa la igu yiri kan laga yaabaa in dad gabooyaa tahay kugu yiri jiraan laga yaabaa dad midgaanimo iyo wax aanan ma garanaysa aan jirin cid midgaan horta ma jirto gabooyina de waa qabiilada Soomaaliyeed lamid ah oo sida dadka Soomaaliland kula dego kale saaq samaroon le warsangili le waxa weeye dul bahantale umbay saa magac u tahay waa magac aan soo aaminsan waa magac oo magac caadi oo qabiil laakiin ana aaminsanahay dad badan oo dhaqan xun ay kugu oran doonaan laakiin marka kan waxaad ka dhigatay jaranjaro aad kaga baxsato dhooqadaad uga kula jirto ama dhiiqadaad uga kula jirto haddii ay cid ku nacayso ama cid kugu ceebeynayso ama cid wax kugu diidayso gabaynimo kugu diidayso ama waxa weeye reerkaaga magaciisa kugu diidayso ama bulshada ka soo jeeda kugu diidayso kow dadka aad la degan tahay ama dadka aad wada degtaan ma garanaysa aad dariska tihiin nin reer Hargeysa oo waxa tahay ma garanaysa magaalada iskale u dhashay dhinac ka dega dadka kale kula dega waa dadka ka dhigay xildhibaanka ugu codka badan taariikhda abid ummadda Soomaaliyeed Soomaalida dhulka degto
Djibouti ahaato NFD ahaato maxay 22 kun oo cod xildhibaan keligii helay ama loogu shubay aan meelaha ay ka jirto waxa weeye musuqmaasuq ee kor la buuxiyo waraaqaha lagu buuxiyo baalka lagu buuxiyo sanduuq aan hayn oo cod la soo istaagay oo qof iyo wardanta la istaagay yaa rabtaa inta soo qof 22 kun oo cod ku soo istaagay ku coday kuma aysan codeeyeen qabiilku kuma aysan codeyn oo kuma aysan codeyn reerka iyagu ka soo jeeda kuma aysan codeyn waxba isku nahay kuma aysan codeynin waa adeerka iyo waxba isiin doonaa waxay kuugu codeeyeen siyaasadda halkarnimada codkarnimada dhaqan wanaaga dadka tustay bay kuugu codeeyeen waxayna kuugu codeeyeen inay dabar jaraan yasmada iyo edab darrada lagula kacay community aad ka soo jeedo ma ahayn inaad waxa weey adiguna dadkii inta la soo hor istaagto ama marsiyo uga dhigto gabooyaa la yiri xidiyaha geeska ka baxda lagu yiri wax noocaas oo aanan ciyaal ka dhageysan karin oo bujuq bajaaqa beerkaad in laga mariyo qulubtada istiilaal ay yiri la soo hor istaagto ma ahayn waxay mar alla markii shiru ka dhacay inaad sida rag intaad u istaagto aad waxa weey sida rag u dhameeyo waxay u dhamayso laakiin too late waad ogeydin goolka laga dhalanayo waad ogeydin lagu caarsanayo maantana tiibaad weelaheedii goranaysa lagu baacsanaya waxaad sameysay dhaqan xumo waxaad sameysay asho xumo waxaad sameysay raganimo xumo waxaad sameysay garaadaro iyo waxaad sameysay wax aan magaranaysaa xilliga iyada aad ni weyn oo waxa weey halka heerka dadku gaarsiinayeen ya aan laga filin dadka inta soo codursi eesaas ku sharfay ee halka ku saartay ee ilaa hadda waa xildhibaankaygii waa kii matalay waa kii magaranaysaa aan watay dhahay inaad maanta ugu jawaabto waxyaalaha noocaas ilama qumana aniga ilamana ahayn hadii qof dadka kula daga kamida oo magaranaysaa iyaga kamida uu sameeyana tu ka daran ay ka daran inay ku dhicleedo aan ognahay ay ka daran inay ku dhicleedo waan ognahay inta lagu caay libilaabkeed baa la caayda libilaabkeed ma aha adiga reerkaaga in lagu caayo waxa lagu caaya waxaad samaysay dadku runta ma jecla dad badan baa waxa weey laabta soo garaacan doonaan oo doona baa hebel baa wax laga sheegay qabiilkiisa lagu eriyay qabiilkiisa cid wax ka rabta male cid wax haysata male qabiilkiisa waxay sameeyeen laba sameey laakiin wuxuu sameeyay siyaasi dawladda iyo nimanka xukuumadda haystana waxa uu sheegaya waa dibjir wey dibjir ma taqaana dibjirka qofka dibjirka ciyaal suuq waxba kama xisho waxa leeyahay wixii u maray ayuu sameeyaa inaad waxa weey dadkiidan doortay iyo dadkii waxa weey mas'uuliyadeedii doortay dhibaatooyinka ay sameeyaan ay magaranaysaa ay xeelasha dhexdeeda iyo magaranaysaa dadku bareefad nolol bareefada iyo waxay leeyihiin mustaqbalada dambe dhibaatooyin hadii ku dhacaan qof jeelka lagu xiro inaad nolosha bareefadkiisa waxyaalihii magaranaysaa ka dhacay xaliseen ee jeelasha ka dhacay inaad dadka la soo hor istaagtaan ama political goal ku raadisaan ama hadaf aad ku raadisaan siyaasadeed oo ku raadsataan shacab iyo magaranaysaa qofka dhaawaclaan waxaasi waa dhaqan xumo waa dibjirnimo waa ciyaal suuqnimo waa baastarnimo waa doqonnimo waa liitinimo waa rafaad kalkii u dambeysay nolosha ayaad qofka ka ridaysaan idinkuna inaad wax faa'iidaysaan baa isku maleynaysan waxaad iska dhigaysaan dad ma taqaana halkii ay joogeen iyo bartii lagu haweenaayo halkii lagu ogaaba dib uga dhac waxaas cid idinka dhagaysanaysana haba yaraatee ma jirto waxa weeyaan dadka waxa weey waxa falaqeeya meelahaas ka hadla nin walba dhan buu la caray laakiin xaqiiqadu waa taas barxad dooqada waa ku jira ha ahaatee maanta waa qoys dhisan ma rabaan inaan gabadh ka hadlo laakiin waxa ka hadlaya waa ragga ma aha xaaje rag in gabadh laga hadlo inaan gabadh ka hadlo ma rabo laakiin waxa ka hadlaya waa ragga maanta laakiin waa qoys dhisan haddii maanta barxadow mar intaad gabadh soo gad fadhiisato reerkiina lagugu diido markaas la ogaan lahaa markaas la oran lahaa haddii aad 100 interview qabato aad baroor fursad tiraado inta soo gaboweynima lagu diiday ama waxa lagu diiday reerkayga diileed umada dhan ku garaabi lahayd laakiin marka diiqa dhex fadhiisatay cid ku garaabaysa ma taqaana gabadh baan xumeeyay oo waxa weeysa u galay baa reerkayga lagu eryanaya cid kaaga dambiga kaaga ma garanaysaa kaaga garaabaysa ma jirto diiqada cagaa kula jirta barxad batuuno diiqo ayad cagaa kula jirta